gaadiidka loo yaqaano bajaajta oo sanadihii ugu dambeeyay ku soo badanayay magaalooyinka Soomaalida oo ay dadku u adeegsadaan siyaabo kala duwan ayaa dhanka kale waxay sababaan khasaarooyin xilliyada ay ku jiraan shaqada. warkan waxa Boorame nooga soo diray wariyaheena Xasan Ciise. gaadiidka yaryarka ee loo yaqaan tigta ama bajaajta kuwaasi oo sanadahan dambe ku soo batay magaalooyinka Soomaalida ayaa gaar ahaan magaalada Boorame oo hadda ilaa iyo muddo 4 sanadood gaadiidka yaryar ay ka shaqeynayeen ayaa isu socodkii magaalada iyo isu dhawaanshaheedii qayb laxaad la ka qaateen iyadoo dhinaca kalena waxyeeladeeda shilalkeeda iyo qaabka ay wadooyinka waaweyn halbowlaha magaalada u maraan oo aanay nidaamka wadooyinka ilaalinin ay dadku ka eed sheeganayaan. inkastoo hadaba aanay noo suuro galin in ciidamada nabadgelyada wadooyinka arintaasi oo aanu kala xidhiidhnay ay nooga waramaan, haddana dadweynaha kuwa ku shaqeysta kuwa rakaabka oo in iyagu bajaajtaasi ka hadlaya ayaa waxa ay yiraahdeen nidaamka u shaqeeyna waxa weeyaan nidaam waafaqsan sharciga oo ah waxa weeyaan gawaarileedena bajaajta ah waxa weeyaan waxaan ka shaqeynaa wadooyin badan oo ay ka mid yihiin wadooyinka jarka fardaha sidoo kale waxa weeyaan Shaacusmaan si fiican oo u shaqeynaa bulshadana waxa weeyaan wax ka olbaan u sameeynaa dadka dirawliinta nahay ee bajaajleyda markii hore way aad u yareed imigana aad qaararba ka baxbay ugu soo bateen wadooyina ma jiraan wadooyinkuna aad bay noogu yaryihiin marka waxa weeyaan waxaan ka codsanaynaa in dawladda inay nooga qabto wadooyinkana noo furto bajaajta waxaan in shaqaalaha markasta oo dhaqaaqayo bajaaj laga maarmaan bajaaj haddii aan waxooga yar ka warramo waxa gaadiidkii ugu horeeyay magaaladan ka shaqo gala dhaqaajiyayna laakiin hadda waxaad moodaa in waxtarkeedu ay qasaare ka badan yahay waayo dhakhtar kastoo tagto waxa halkaas jabka yaala in ay bajaaj u tahay islaanday umurayso taxi qof dhakhtar la geynayo taxi wax walba taxi $20 $30 baa oo dib baalka jirtay bajaajkan marka ay timiday bisiidkan looga duceeyay 7 midho ugu horeeyay la keenay inay geerina geela keenay ducadii baba laga aqbalayba magaaladii markay indhaa u jeexday halkii laga qaadi jiray $10 ama $20 kumbaad kaga tagaysaa gurigaagii aad bay u fara badan tahay laba dhinac markii laga saxo baljaaja aad baa loogu baahan yahay loodan karaa oo marka koobaad waa in dad macquul ah bajaaj loo dhiibo marka labaad waxaan leenahay waa in jidadka loo hagaajiyo marka jid ku filan haday hesho iyo dad macquul ah hadii loo dhiibo mar walba baahida ayaa ka badan marka saas faa'iido badan bay leedahay loodan karaa. si kastaba ha ahaatee bajaajtu waxa ay ka qayb qaadatay magaalada Boorame oo sanadahan dambe lagu tilmaamay gaar ahaan warbixin ay dhawaan diyaarisay hay'adda la yiraahdo UN Habitat inay ka mid tahay 5 magaalo ee ay Soomaalidu degtay ugu fiditaanka badan in ay tahay in ay isu dhawaanshaheedii iyo isu socodkeedii aad iyo aad gaadiidkaasi ay u fududeysay iyadoo dhinaca kalena khasaaraheeda iyo shilalka ay geysatay maalin walba uu yahay dhacdo joogto ah oo dad badan ay wax ku noqdaan. Xasan Ciise, telefishinka waa bari magaalada Boorame.